بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد isku soo noqod wanaagsan insha Allah yaal ina caafimaad qabta rajeen anuuna waan caafimaad qabo alxamdulillaah rabbil caalamiin haddaan ku soo laabto koorsadeena graphic design ka ku soo gudbin jirnay barta YouTube aan ku leenahay ee Rushek Academy maanta si ujeedan miska wax noo saarin editor design sida loo sameeyo ugu horreyn intaan u gelin design sida loo sameeyo waxaa idin sheegayaa waxay tahay inaad qofka design-ka ee editor-ka u sameynaysan inaad xogtiisa oo dhammaystiran haysaan xogtaas oo ka kooban magaciisa oo dhammaystiran title-ka uu yahay iyo editor-ka lambarkiisa qofka dhigiisa noocu yahay iyo lambarkiisa iyo editor-ka xilliga uu soo baxay iyo xilliga uu dhacay waana xogta saas u diyaarsatid si kaaga khaldamin si aad ogtihiin editor-ka front end iyo back end buu leeyahay marka back end-ga waxa lagu qoraa waa contact-ga iyo waa aragteen oo editor-ka dulan waxa ka anaga la soo xiriir ama halkaas iyo xafiiskaas geeya hadaa heshaan camal lagu qoraa laakiin waxa muhiim ah front end-ga oo ah inta hore oo editor-ka la arkayo qofka sawirkiisa iyo magaciisa oo dhammaystiran lambarkiisa oo dhammaystiran sidoo kale waxa muhiim ah editor-ka marka sameynaysa anaga cabirka aan ku sameeyno waxa waaye 9.2 times 5.5 laakiin cabirkiisa saxda waa 9.5 laakiin 0.21 waxa ugu darsanay baa waxay tahay editor-ka hadaa ku laabanis runtii waxa ugu darsanay baa waxay tahay editor-ka markii la daawacayo si ay xogto nooga jarmin machine buu waxaan u dhex marayaa si marka xogteena safe noo ahaato baan ugu talagalnay 0.2gaas marka waa ka sadeertan tabtaab buu ku soo baxay marka 0.2 ku darnay xogtaada waa ku safe dhexdii kugu aadamisa xogtaadana dhammaan waa ku badbaadaysaa laakiin hadaa meelahan geeyno ama darbiyada aan xijino waxa dhacaysa in markii machine-ka uu jarayo xogtii qaar ka mid ah la waayo marka sidii noocaada ahayd anoo ka soo from scratch ilaa dhamaadka idinkuna la socdo wanaagsan control n ama fail baan taagtay wax dhahnay new ama control n shortcut unit-ka maanta ay sidana waa centimeter cabirkuna waa kan 9.2 times 5.5 centimeter RGB hakan waa 300 ku ahaata PPI hagan must iyadoo maaha magaco editor enter ugu horreyn marka attribute marka saa noogu soo baxo anagu marka marano content waxa rabnaa tag si marka tag aan u sameeyno waxa taaysa attribute-ka markaas marka waxa ka dhigaysaa tag okay saas waa marka tag loo dhigo control minus si uu soo noogin hore marka kalaraanta aan ku shaqeynana waa labada kalar nuskubiye dhammaan wixii resource-ga waxa kala digaysaa barta Telegram-ka ku leenahay Rushek Academy description-kana waxaan soo dhigaynaa barta comment-ga baa kala digaysaa mock-up ayugisana waa soo jalayaal waan ka xunaa inaan video idin soo dhexgalnay waxa idin sheegnaa ku yaabaa wax tahay in aad channel-ka kor u qaadaan oo subscribe-ka halka button-ka noo taabataan like iyo share-ta noo dhiirigelisaan annaguna insha Allah ta'ala waa soo dadaalnaa koorsadan graphic design dhowr cashar baad nooga haray ilaa adigu 12 cashar waa soo gelinay 12 kale baa noo haray insha Allah ta'ala asbuuci ilaa 4 ilaa 3 waa soo gelinay video oo ku saabsan koorsadan graphic design si waliba free ah insha Allah ta'ala 2026 sanadka markuu noo dhamaado koorsooyin kale oo si free ah waa soo gelinay insha Allah wixii contact-gan halka nagala xiriiri WhatsApp number halka ku saaran yahay
wixii resource-gana dhammaan waxaan soo gelinaa Telegram linkiga. Halkan waa kala xiriir, halkan waa ka taaban kartaa. meesha kale oo commentigana waa idin soo gelinaa linkiga insha Allahu tacaala marka la socdo wanaagsan. mock up-ka yugiisana waa soo gelinaynaa. waa kaas mock up-kaas quruxda badan baa asigana gelinay. mock up-kana waa kala digaysaa insha Allahu tacaala. labada kalar haddaan soo qaadano markaa toos baa wax u gelaynaa shaqadeena. ugu horreyn waxaa soo qaadantaa rectangle tool. kalarka aan siinayna waa kalarkan. si aan marka rectangle toolka inaan wax rabnaa wax ka bedelno shapekiisa. kana wax ka qaadanaa copy alta falaarta markii laba xaba saas u noqoto dhinaca u jiid marka AKC. falaarta markii laba xaba saas kugu noqoto saa u jiid marka inaan wax rabnaa wax ka bedelno rectangle-ka hoose si aan wax uga bedelno marka isla aragno. kana wax ku sameynaa rotate kii copy-ga aan ku sameynay inaas markaa nagu filan. isla highlight garee shape builder waa kan shape builder soo qaado calaamad hadeertan waa plus alta la qabo computerkaaga marka minus u noqoto marka saas u gooy. marka direction select tool soo qaado koonaha kaliya click siiso xoogaa asaga jiid kor iska qabo. inaas markaa nagu filan. kana wax ka qaadanaa copy marka alta falaarta markii laba xaba saa u noqoto kalarka waa ka bedelanaa oo kalarkan baa ku daaranaa. inaa xoogaa marka yareynaa rabnaa. inaa ka hoos marinaa rabnaa marka arrange send it to back marka waxaas saas buu marka noogu soo baxay. length tool baa soo qaadanaa. inaas baa shift adoo lahaya ku sawiro inaas markaa ka foqosanay shift la qabo click C. marka stroke-kiisa waxaa ka dhiganaa marka kalarkaas haddaan xigeenka ah. stroke marka waa u kordhinaa 4 baa ka dhiganaa marka kor noo qaado. rectangle tool soo qaado in marka la AKC asaga kalarka stroke marna waxaa ka dhiganaa kalarkaas xoogaa u soo dhaweey marka xoogaa maleka AKC hoosna la AKC calaamada marka kusoo qorto xoogaa iska jiid asaga. sawirka aan gelin hadda waa noo sawiran tahay dhexda marka isku gey control J inta dhexda oo group ku sameysay alignment center marka dhexda saas noo ku geey. marka hadda waxaa noo haray inaa magacii iyo title-ka iyo xogta oo dhameystiran hadda marka noo haray. xogta marka si aan dhexda isku geyno text tool noo soo qaado. xaggan waxaa dhahaynaa ID number soo gaabsan number ID number farta aan adeegsanayno highlight garee farta aan adeegsanayno waa fartaas galans boldna waxaan rabnaa in ayada aan ka dhigano haddii wax joogtaa regular bold kaas marka kana marka waxaa qaadanaa copy wixii qorqorxin hadhowta waa gadaal ka hagaajinaa copy ilaa aduu 4 jeer wax ka qaadanaa copy. halkan iyo highlight garee dhiigga noociisa. halkana waxay noo ahayd phone. intan kalena waxay noo ahayd inta kale tabta noogu daa. marka hadda
islama simna oo jeeda islama simna inaa wax rabnaa isku meel qoraalkeena oo ka bilaabno marka waxaan tagaynaa alleen baa taabansa calaamada weyn kugu saarnaataa waa kaas marka isku sii hadda isku hal meel bay marka qoraalkeenu ka bilaabanaya haddaan kugu soo celiyo waa kaas hadeertan isku hal meel qoraalkeena kama bilaabanayo marka waa si qoraalka inuu isku hal meel ka bilaabmo aad rabtid calaamada weyn ku saarnaato halka horizontal line waa kaas marka isbedelka u jeedaan marka hadda waxaa noo hadhay waa in ID-ga lambarkiisa aan siino markaan wax ka qaadana copy si noo qaldamin alta inahaas marka noo sidaa numberka 11 marka hadda waa bold tan uma rabo ka kala ile bold oo isticmaalay ciwaankii kan waxa weeye siinaa medium okay kana wax ka qaadana marka copy alta calaamada marka ku soo qabto marka control G marka dhiiga oo kale waxa ka dhigana A+ dadka A+ ka numberkana 090 waa lambarka akademiyada kala soo xiriiri kardaan marka halka marka wax soo gelina qorta oo dhacayo iyo xilliga la soo saaray ID-ga nescopy software note marka right click isku marka inahan ba labadan ba dheeri nagu ah jar asaga right click fee ku dhamar sidoo kale wixii qurxina gadaal ba ka dhigana tanna nescopy kana control C control V okay marka intan kalarka ka dhigana waxa noo ahayd medium kana sidoo kale eyedrop soo qaado ku dar marka hadda wax rabnaa xoogaa wax naga fulay geesaha ina wax rabnaa dhexda aan xoogaa geeno control J dheh group ka dhig dhexda waa kaas marka dhexda saas ba nala ku geey waa kaas marka cabirka halkana intan cabirka halkan u jiro darbiga ama geeska sidoo kale oo dhinaca kale oo darbiga u jiro waa isku mid dhexda marka nala ku geey marka hadda waxa noo dhiman waa sawirka xoogaa ina wax rabnaa an group dhahno xoogaa 8 wax moodo inay xoogaa banaanka 5 isla siman oo kaas marka waa la simanta iyaduna toos ba marka nagu yahay again issue aydan toos ba marka oo qaatay ID-ga lambarkiisa iyo D-ga lambarkiisa title ee qofka lambarkiisa marka noo dhameystiran hadda halka waxa noo haray waa sawirka kuwan an group leh si aan sawirka u soo gashano halka soo gali sawirka marka iligta yarta draw ama shift draw insert marka sameynaysa waxa lagu safray shift plus D file ba tagana meesha uu sawirka ku ilaaba marka soo gashanaysa toos kan Soomaaliga oo laakiin Soomaaliga ahayn ba ku sameynay ku highlight gareynaysa flaartan ay istaagtay halka siinaysa marka
halkaas marka saas buu kusoo baxayaa. saas buu marka kusoo baxay. Hadda marka wax noo dhiman waa title-kiisa wuxuu noo ahaa graphic designer iyo magaciisa iyo title-kiisa noo dhiman. nagu laabo project-keena kuwan marka hoos xooga naga gee hoos. Text tool click v ku dhig marka waxaan rabnaa in dhexe nagu gaasiga yaree first all curves inaa waxaan rabnaa marka ka dhigno character baa click siinaysaa. hawaa computerka iga culus computerka aan ku sameynayo design-ka. all curves fartan inaa waxaan rabnaa farta muuqanayso oo poly aan ka dhigno. marka poly ka dhigno marka waxaa jeeda inay fara yar marka naga noqotay. character aan nagu laabo all curves hadda marka hadda marka samba ka rabnay maxamed oo kale Soomaalihan iyo English naga noqotay marka bedelana Maxamed Farax Jaamac. okay marka waa kor marka noo qaad kana waxa qaadanaa copy marka hadii wax ka khaldan control set baa ku soo ceshanaysaa hadda copy marka marka hadda wax noo hara waa title-kiisa anaga wax noo ahaa graphic designer. soo copy double click si highlight garay control A control V. color-ka aan siirno wuxuu noqonayaa color-kaas dhexdeena noogi marka alignment center waa ka dhexda marka saas baa nolol ku geeyay. kuwan marka kor hadda u qaad isla highlight garay ayagoo dhan groupna ka dhig control J center marka alignment center to center. halkaas marka xoga AD-ga qaadan marka hadda control J dheh alignment center to center. halkaas marka hadda marka waxaa kana xogaa marka yareena xogaa kor nooga laabo kana waxaan rabnaa inaan marka copy ka qaadano xogaa weliba geesaha xogaa kor xogaa noo qaad inaas marka noo wadi hadda marka alignment center to center u dir. halkaas marka kana waxaan rabnaa inaan copy ka qaadano alta kana inaan marka waxaan rabnaa copy aan ka qaadano alta falaarta marka la xabasa oo noqoto hoos u jeed in angle-ka bedelna rabnaa rotate yar aan ku sameyno inahaas ah. okay si marka kale aan u sameysano in aan sameyno asaga angle tool baa soo qaadanaa inahaas baa ku sawirana wax naga raaca stroke nan dheh stroke ma rabno nan naga dheh xogaa weyne asaga marka copy noo qaad alta dheh xogaa sidoo kale weyne rotate-na ku samee isla highlight garay marka hadda shape builder soo qaado si hadaayo kale calaamadda markii ku soo qaado saas u jar marka waxaa soo qaadanaysaa direction select tool dhinacan koonaha ah kor xoogaa iskaga qabo inaas marka nagu filan. color-ka aan siirno color-ka nagu dar hadda haddaan control minus
banaanku nooga baxay xoogaa kana soo weyne kana sidoo kale soo weyne meel dhexe iskugu keeno xoogaa banaanku baxaya isla ekaysiin marka si aan loo dareemin hadda marka waa leegyahay xoogaana soo durka labadaba isla soo durka waa kaas marka control minus hadda dhahno saa ujeedaa marka sidaa marka hadda ujeedaan waa qaybta hore waa ka baxnay qaybta labaad si aan u sameyno qaybta hore baa xoogaa muhiimsan qaybta labaad si aan u sameyno marka waxaa tagan artboardka plus noogu dar mid kale kii kale marka waa noola ku daray intaan ka labaad u gudbin hadda wax nooga haray kan koowaad waa logadii logada ayadana waa noo diyaarsan tahay logada marka waxaa ku furan waa kalar casaan marka inaa wax rabnaa madowga aan ka dhigno dark blue image trace kalarkana kusoo fulinaa 6 kalar meesha ah baad tick siinaysaa wuxuu sameynayaa background yara wuxuu sameynayaa expand backgroundka si aa wajino make tool baa soo qaadanaysaa click baa ku siinaysaa keyboardka delete baa ka taabanaysaa marka hadda deertan waa ka bedeli karnaa marka kalaraanta waa kaas xaraf baa u taabanaa n group ii dheh aarta eyedropkana waxaa ka siinaa taas sidoo kalena midowgana waxaa siinaa eyedropka soo qaado ku fur kalarkaas hadda waa ujeednaa hadda marka isla helid kale inaa ujeednaa kalaraanta aan ka bedelnay logadeena marka isla helid kale marka ayuu dhan hadda control J oo ah group yaree marka aarta ka tagnay isla helid kale control J shift la qabo yaree marka waa kaas si aan dhexe iskugu aadino ta hoose rectangle-ka taabo kan sarena click sii align center to center dhexda markaa dib ugu aadantahay kana xoogaa banaanka nooga baxay soo yaree soo geli gudaha marka waa kaas markana waxaan rabnaa inaan copy ka qaadano alt drag ee ka sii meesha waa back indiga asugu waa iska fududyahay back indiga asugu waa iska fududyahay waa meelihii contactigiina lakala soo xiriiri lahaa kana sidoo kale copy noo soo qaad copy marka saas nooga soo qaado marka waxaa tegaynaa xogtana ah xogta kaarka inuu yahay Rusheek Academy kaarkan ay leedahay click control V marka enter yaree marka please marka enter si loo arko marka waxaan siinaa poly characterna waxaan ka dhiganaa all caps click baa hal mar siinaysaa character isaga iska soo baxaya all caps saas waa oo dhignay hadda waa yareen halkan oo kale waxa ku jira space yara ka tir okay marka qoraalka inaa waxaan rabnaa wax ka bedelno paragraph align center okay marka okay marka yare shift waa yare dhexda iskugu geyn
center. Okay marka hadda waxaan noo arag waa contactigii. hadda waxaan ka rabnaa in calaamadda yar tahay oo ku jira iconka waxaa rabaa dhexe ku jira. marka si aan kan sare iska daayo wax dhahaysa right click and group kan dhexe marka noo soo qoro control C ID cardkeena nabaad halkaan ku paste gareena yaree marka shift la qabo shift alt yaree marka inahaas kale xogaa weli waa weyn yahay yaree. sidoo kalena waxaan soo qaadanaa email koreen hadda marka inaan wax rabnaa icon-yadan alignment-gooda aan saxno waa helid gareynaysaa alignment-ga calaamadda wayna meesha ku saarnaataa horizontal. marka hadda inaan wax rabnaa waa babsiina waqtiga casharkana waa ilaalinaa inaan wax rabnaa halkan aan ku qorano lambarka +252 97 68 42. okay marka halkaas isku geey noocyadaas kan copy iga qaad marka gmail-ka qoro highlight garee control A gmail-ka iyo qor com waa kana banaanka marka nooga baxay xogaa soo yareynaysaa oo inahaas ka baxeen kana wax ka qaadanaa marka copy highlight garee control A garowe hakad Puntland hakad Soomaaliya oo kale marka kana xogaa banaanka nooga baxay isla highlight garee marka saddexdan alignment-gooda halka noo saarna check marka waa ka hadda isku hal meel bay marka ka bilaabmaan marka hadda marka highlight garee xogaa marka xogaas oo soo yaree waa kaas marka inaan wax rabnaa space-kan dhexda meesha aan ka baabi'ino kuwan group ka dhig marka kuwan control J xogaa marka meelaha kor agaga qaad iyagoo dhan marka group isla dhigay control J alignment-ga center to center waa kaas marka hadda halkan waxaan noo ilaa marka saxiix waa qorona marka signature iyo qor signature marka saxiix hadda adigu aad leedahay halkan ku diyaarsana waa soo qaansa ani saxiixan waa googlaha kala soo digay background-kana marka waa ka jaraysaa background-ka remove cashar horaan ka sameeyay sidii remove looga dhaho sawiraanta background-ka looga jaro marka waa yareynaysaa hadda yaree saas u yareynaysaa marka hadda marka waa dhaman wixii qurqurxin hadda waxaa ujeednaa in halkan oo kale ay wax yar ay ka khaldan yihiin centerka ay iskugu geenaysaa kan koraad taabanaysaa adoo shift la haya teetarka alignment-gana oo sax marka saas marka noogu saxan yahay wixii qurqurxina marka dhameysid design-ka loo soo jeestaa xogaa halkan xogaa hoos u soo deji inaas marka naga casharka ku kulmano. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.